السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هابينimo wanaagsan dhageystayaal meel walba aad ka joogtaan daafaha caalamka. Wararkeena fiidnimo qodobada caawa ugu door karoon waxa kamid ah wadamada Kenya iyo Ethiopia oo soo dhameystiray ciidamadii ka qayb gal lahaa wajiga labaad ee lagu dagaalamayo argagixisada Al-Shabaab. Madaxweynaha Zambia oo la wareegay xilka meertada suuqa Komisa. Wafdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya oo shir uga qayb galay dalka Lubnaan. Madaxweynaha deegaanka Oromia Shimalis Abdisa oo sheegay in la sii wadi doono duminta masaajidada Addis Ababa waa caasimadda dalka Ethiopia. Maamulka shirkadda Global Health Care oo dhakhaatiir heer caalami ah ku soo dhaweysay magaalada Garowe ee Puntland. intaas waxay ahaayeen qodobadeena ugu door karoon waxa sahlaysan bank soo gudbinta warka fiidnimo ee daljir waxa fududeeyay Sombank ugu imow adeegyo banki oo dhameystiran hufnaan iyo damaanad qaad adduunka oo dhan. Sombank samaan sareyn iyo shaqo saafi ah. Sombank waa hagaag warkii oo faahfaahsan wuxuu idinka imaanayaa istuuriyaha daljir ee magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida. waxaa idin soo jeedinaya anigoo Jamarti Yaxye. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sareeyo guuta Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay dawladaha Kenya iyo Ethiopia inay keeneen ciidamadii loogu talagalay inay ka qayb galaan wajiga labaad ee lagu dagaalamayo argagixisada Al-Shabaab. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga waxa uu sheegay ciidamada dawladda Kenya ay soo dirtay inay haatan ku sugan yihiin Ceelwaaq, Hoosingow, Gariley, Doobley, Kulmiyo iyo Diif, halka ciidamada Ethiopia uu sheegay inay ku sugan yihiin Caabudwaaq, Yeed iyo Qurac Joome. waxa kale oo afhayeenku sheegay in dawladda Soomaaliya haatan ay diyaarisay ciidamadii la shaqayn lahaa ciidamada labada dawladood ay soo direen. waxa kale oo sheegay inay Soomaaliya yeelan doonto hogaaminta ciidamada dagaalka. ciidanka Ethiopia ayaana loogu talagelin inay kaligood hawl galaan ayagoo lagu heshiiyay inay horkici doonaan ciidamada dalka Soomaaliya oo kaashanaya shacabkooda. madaxweynaha Zambia ayaa dhigiisa Masar kala wareegay xilka meertada suuqa guud ee bariga iyo koonfurta Afrika ee Komisa. madaxweynaha Kinde waxa uu madaxweynaha dalka Masar Cabdicasiis Al-Sisi kala wareegay hogaaminta madaxda dawladaha iyo xukuumadaha ee dalalka xubnaha ka ah suuqa guud ee Komisa. munaasabadan xil wareejinta ee qalabka awoodaha gudoomiyihii hore ee Komisa ahna madaxweynaha dalka Masar ayaa la qabtay muddadii uu socday shirweynihii 22aad ee dawladaha xukuumadaha ee suuqa Komisa ee ay dawladda Zambia iyo golaha ururka Komisa wada martigeliyeen. wafdi uu hogaaminayo wasiir dawlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka madasha labaad ee Arab Forum for Quality oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay dalka Lubnaan. wasiir dawlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Yuusuf Maxamed iyo xildhibaan Maxamed Abdiraxmaan Qubro ka socday wasaaradda beeraha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa ka qayb galay madal looga doodayay ilaalinta bulshada sinaanta iyo sugnaanta cuntada kaasi oo maalmahanba ka socday xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada Beirut. wasiir Yuusuf oo ka qayb galay madasha dood wadaaga ayaa ka faalooday qorshaha wasaaradda kaga aadan arrimaha bulshada ayaa ugu horeyn uga mahad celiyay dawladda Lubnaan iyo xafiiska qaramada midoobay ee Beirut casuumadda ay fidiyeen. madaxweynaha kililka Oromia Shimalis Abdisa oo kulan la yeeshay culimadiinka ayaa sheegay in duminta masaajidada la sii wadi doono ilaa iyo 656 goob cibaado ah. ayuu ku sheegay inay ku dhisan yihiin sharciga baalmarsan isla markaana la sii wadi doono duminta. madaxweynaha deegaanka Oromia Shimalis Abdisa oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in la dhisi doono magaalo ay ku noolaan doonaan 20 milyan ilaa 30 milyan oo qof. magaaladaas uu sheegay loo dhisana culimadiinkii oo kulanka la yeeshay ayaa waxa uu ka codsaday inay kaalintooda kaga qayb qaataan duminta masaajidadaas. maamulka shirkadda Global Health Care oo kaashanaysa arrimaha caafimaadka kana howlgala dalal badan oo caalamka kamid ah ayaa Garowe ku soo dhaweeyay dhakhaatiir heer caalami ah oo ay ka keentay dalka Hindiya. dhakhaatiirtan oo ah kuwa inta badan dadka Soomaaliyeed ay u tagi jireen Hindiya
ayaa takhasus buuxa u leh la tacaalidda xanuunada kansarka lafagaraaca iyo uurjiifka iyo caloosha. Dhakhaatiirtan ayaa toddobaadka soo socda ka howlgali doona magaalada Kaalgacyo, gaar ahaan hosbitaalka Shifo. Shirkadda Global Healthcare ayaa ka shaqeysa dalal badan oo ku yaala bariga Afrika sida Kenya, Ethiopia, Uganda iyo xarunta guud ee shirkadda oo ku taala Sacuudiga, waxayna si rasmi ah uga howlgali doonaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland. dhegaystayaal, waxaa intaas noogu dhan warkeena fiidnimo.